haddii aad meel dheer ka joogtana idinna uga haysato maqnaantaada aad teleefonkula xiriirto ama warqad ama cajalad oo hadal wanaagsan oo nugul kula hadasho oo naxariis miiran ah sidaad ugu hilowday aad teleefonka ama cajaladda aad duubtay ku maqashiiso oo aad ugu muujiso oo siisa una dirta wax kasta oo ay u baahan yihiin oo aad awooddo oo ka dalabta cafis iyo masaamax iyo duco iyo inay kuu dambi dhaaf dalbaan ma milicsatay oo ma istustay ciribta xun iyo ceebta iyo fadeexada banka qiyaamaha haddii aad kula kulanto alla dembigaa halista ah ee weyn dembigaa caasinta waalidka dembigaa lagu rogmado ifka iyo aakhiraba addoonkii allow miyaanay kula gudbooneen inaad u tagto ama la xiriirta aabbaha iyo hooyada maanta ama caawa oo ka dalabta duco dhegaysa qisada caasigan oo alla badanaa baryahan caasiyiinta dembiilayaasha ah ee ku gabood fala xaqa waalidkood wuxuu ka dhoofay hooyadii iyadoon u idmin safar uu ku galay arla gaalo ma arag hooyadii sanooyin lama xiriirin ma xaq dhowrin wuxuu u dhaqmay sida inuusan hooyo lahayn sida inuusan garanayn iyadii oo cidla ka yimid xitaa telefoonku lama xiriirin warqad ama cajalad ama hab kale wuxuu ahaadaba si uu xaalka hooyadii u ogaado hooyadii baa bukootay oo sakaraad gaartay oo boyday waxay u yeertay daraskeedii oo ku tiri kala xiriiray wiilkaygii teleefonkan waa teleefon uu lahaa ay dad kale ka heshay waxay tiri la xiriira wiilkaygii la xiriira wiilkaygii waxaan doonayaa inaan gaajada saaro intaan dhiman ka hor waxaan rabaa inaan dhunkado waa wiilkeygii si kastaba ha u galay oo way u hilowday qalbigay ku haysaa markaasay la xiriireen wiilkeygii oo ku yidhaahdeen hooyadaa nafi kuma jirto oo kama bixin waa sakaraad waxay doonaysaa inay ku aragto waxay doonaysaa inay ku dhunkato wuxuu yidhi wiilkaa mujrimkaahi ma haysto waktigaygu waa ciriiri waan shaqeeyaa cawiya maalinba waxaa ii socdo howlo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kadib way dhimatay hooyadii iyadoon arag wiilkeedii waxay dhimatay iyadoo u caaraysan oo u ciilqabta markaasay daraskii la xiriireen wiilkeedii oo ku yidhaahdeen way dhimatay hooyadaa way dhimatay duqdii ku dhashay maxaad filaysaan inuu ugu jawaabay wuxuu yidhi haddaba idinkuba aasa oo arrimaheeda ogaada oo dhammeeya laa ilaaha ila allah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa hooyadaa caloosha bilaha sagaalka ah kugu haysay imisaad haraatiya caloosheeda hirdinaysay imisay dhalashadaada u soo mudatay hafeetiyo haygada xanuun badan imisay horaada ku harsaysay hagardaamadaadii hihna ayan odhan habeenkoo la seexdo la hurdi weyday halka aad ka sheegato habaaskiiyo saxaradii iyo kaajadaada kama ayan hawoon jirin maxay uurkiiyo laabtiiyo kugu qaaday araxdo naasaha irmaaniyo ifkeeda ku moodisay sidee u ilowday abaalkeedii ma ilowday addoonkii allah addoonkii allah inta ay hab ku siisay ma ilowday inta ay dusheeda kugu haysay inta aad dhabteeda ku gamaaday hurdo inta aad hafteeda dugsi ku heshay waxa aad ku halmaatay waa ababinteedii maxay hayeenkuu ahayd aad ku baraartay maxay hogolkuu ahayd aad ku qabowday gogol lagu huraana dugsigii hufnaanta hiddo lagu arooro ma waxaad haddaba iyadoo intaa howlo kuu soo martay iyada iyo aabbaha ka bakaysay salaan iyo booqasho joogto ah iyo u khidmayntooda tilmaad furni ah haddii aad ka fog tahayna inaad kula xiriirto walow telefoon warqad cajalad dad baxaya oo u socda halka ay degan yihiin oo aad war iyo wacaal ugu sii dhigtay iyo hadiyado oo si sabiil ku filan oo joogta ula xiriirto way xaqoodii ma waxaa dayacday oo ka dalla'atay daryeelkoodii markii ay gaagaareen sidee laba toddobaad u soo wareegtaa ama bil adigoon la xiriirin aabbaha iyo hooyada xaalkooda ogaan iyo waxa ay ku sugan yihiin sidee sanad ama 2 sano ama ka badan u soo wareegaan adigoon arkin adigoo awooda lacana allahu man lacana waalidayh allah uma naxariisto qofka aan waalidkiis u naxariisan dufa ku baxo qofkii aan waalidkiis dhanayn oo aan daryeelin حكيمة كتب في أمرك الله وحجر الله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
kaalaya waxaan idiin akhriyahayaa waxa uu rabbigiin idinka xarimay hala wadaajinina xagga cibaadada waxna alla la jirki oo wanaajiya oo baari u ahaado waalidkiin wuxuu kaluu yidhi waid akhadnaa mitaaqa banii israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana oo xus markii aan ka qaadnay wacadka ilmihii israa'iil inagoo leh ha caabudina cidna alla ma ahe keliya oo u baari ahaada oo wanaajiya waalidka sidee buu qofku u wanaajin karaa waalidka wuxuu ku wanaajin karaa in laga helo qofka laba tilmaamood oo wanaagsan tan koowaad waa inaad ka dhowrta erey xun oo xurmo darro ah oo ay ka xumaadaan inayan afkaaga uga soo bixin kelmad xun kolay uf tahay marka aad la hadal damacdana degani wax ugu sheeg hadalkan oo nugul si khushuuc iyo quduuc leh xurmo iyo xushmad waa inaad carabkaaga hal bartaa halna aad ka dhowrto iyaga xaggooda gaar ahaan halka aad ka dhowrayso waa qowlka aan habbooneen halka aad la daa'imaysana waa qowlka san qowlka san ee suuban waxaa ka mid ah inaadan ugu yeerin magacyadooda oo qayxan bal aad dareensiiso muuqaankooda weyn ee aabbanimo iyo hooyanimo oo waa inuu ugu yeero qofka waalidkii aabbo hooyo waxaa kaloo ka mid ah kumaamuusidda waalidka qowl ahaan inuusan qofku ku hadlin golo uu joogo aabbihii marka laga reebo laba xaalado xaaladda koowaad inuu cilmi sheegayo xaaladda labaadna waa inuu dan sheeganayo iyo xaajo uu leeyahay waxaa ka mid a edab darrada inay awlaadda ku hadlaan aabbahood iyo hooyooyinkood oo jooga hadal aan milgalahayn ama dan la-aan ah ama kula hadlaan cod dheer oo diiran waxaa la sheegay in maxamed bin siriin raximahullah oo ka mid ahaa culimadii taabiciinta in haddii ay hooyadii timaado uu khashuuci jiray markaasuu qofkii aan garanayn wuxuu odhan jiray maxaa ku dhacay oo odhan jireen sidaas buu noqdaa markii ay timaado hooyadii xurmeen iyo qadarin darteed qowlka kariimka ah waa inaad kula hadasho waalidkaa mar waliba hadalsan oo suuban oo aadan erey aan u qalmin afka kaga soo bixin waa sida abbaarta ah ee allana amray waa inaad kula hadasho hadal fiican mar kasta oo farxad geliya labada waalid oo ka dhowrta afkaaga kelmad wax u dhinta ama dhaawacdo dareenkooda waana inaad ku adeecdo wax kasta oo aan xaaraan ahayn oo sharafto oo darajayso oo ku dadaasho sida aad ku kasban lahayd saalinimadooda arrinka labaad ee baarinimada la xiriirta walaalkay muslimka ahow walaashay muslimadda ahay waa inaad la joogto oo la jirto waalidka inta aad jirto oo dunida joogto waa inaad u dhowdahay oo ka dheeraan oo garab joogto si aad ugu adeegto oo danahooda ugu shaqayso howlaha ay kaa rabaan aad u soo fuliso si dhaqso ah oo aan baah lahayn sida awgeed ma bannaano oo waa xaaraan inaad ka aaddo waalidkaa safar iyo socdaal aan waajib ahayn inay kuu idmaan maahe iyaga wuxuu yidhi alla weyne jalla wacala wasaaxibhumaa fi dunya macruufa kula soco oo kula rafiiq waalidka adduunyada si wanaagsan nin baa intuu nabiga sala allahu calayhi wasalam u yimid ku yidhi waxaan rabaa inaan kugula galo cahdi inaan haajiro oo ku diriro jidka alle aniga oo alle kaga ajar doonaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey waalidkaa ma jiraa mid nool ninkii wuxuu yidhi labadiiba waa nool yihiin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey ma ka rabta alle ajar ninkii wuxuu yidhi haa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddaba iyaga ku noqo oo ugu adeeg si fiican warin kale baa waxay leedahay nin baa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam oo idan u weydiistay jihaad nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey ninkii ma nool yihiin labadaadii waalid ninkii wuxuu yidhi haa nebi allow wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam haddaba waxaa jihaad kuu ah u adeegkooda macnaha waa u khidmayntooda baad ka heli ajarkii aad ka heli lahayd jihaadka oo kale allahu akbar eega qowlka nebiga sala allahu calayh wasalam haddaba iyaga ku noqo oo u laabo oo kula rafiiq oo kula soco oo ugu adeeg si fiican waa la joog oo la jir oo u adeeg oo ka shaqay danahooda iyo waxa ay doonayaan aan macsi alla ahayn wixii macsi alla ah sida inaad u soo eegisid sigaar ama qaad kama yeeraysid uga soo cudurdaaro si xurmad leh iyo xusmad oo u sheeg inaad wax kasta diyaar